علم والبو مربو أرضي أها قوليستا كستنا مربو أها قول درست تاجر والبنا مربو فقير أها ويلكيجيو waxaan rabaa waxyaalahan ku sheegay inaad wiligaaga maskaxdaada ku hayso waya aab in aadanka markaad u baahan tahay wuu ku dhibsanayaa laakiin alle waqti walba u dhawaato wuu ku jeclaanayaa ma jiro geed aan dabeesha ruxin mana jiro ruux aan fashilmin balse waxaa jira geed sal adag iyo shakhsiyaad awood badan haddii aad dhuxusho kun jeer dhaqdo ma caddaan doonto dadka qaarkooda qulubtooda ma caddaato si kastoo aad u wanaajiso dadka markasta uma ooyaan inay daciif yihiin balse mararka qaarkood waxay u ooyaan inay noqdaan kuwa adag wiilkaygiiyo ma jirto laba shay oo ka wanaagsan oo laisku qaato cilmiga iyo dulqaadka wiilkayga weligaaga ha degdegin degdegsiimadu waxay ridaa haybada qofka digriga ilaahayna wuxuu daaweeyaa qalbiga caafimaadku iyo faraaqadu waa laba nimcood ay dadka ilowsan yihiin daras waxaa ugu xun waa kuwa marka samaanta samaysa qariyo xumaanta markaad samaysana faafiya cudur walba wuxuu leeyahay daawo marka laga reebo duqnimada wiilkaygiiyo waa inaad mugdiga soo martaa si aad iftiinka u gaarto ninka ragga ma aha weligiis inuusan fashilmin ee ragnimadu waxay tahay inuusan fashilka ku joojinin macallin walba marbuu arday ahaa guulaysta kastana marbuu ahaa guuldareyste taajir walbana marbuu faqiir ahaa mustaqbal walba uma baahna nolol wanaagsan oo la soo dhaafay jooji tugsiga qiimahaaga hoos ayuu u dhigaa markay dadku ku ixtiraami waayeen isla markiiba iska dhici aamusnaaw ilaa ay dadka ay kaa weydiiyaan waxaad la aamusan tahay iskana indhatir kuwa doonaya inay ku bahdilaan ha naqan ayagoo kale naqo qof ay ku daydaan ka dheeraw goobaha lagu murmo si aadan u daciifin waa ballan wax walba haddii sheegtay inaan sameeyo wiilkayga intaas waa iga waano ee waxaan doonayaa in aad ku dhaqaaqdo oo aadan weligaaga madaxaaga hoos aan geynin waana iga waano